الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي أنا ودرسي سيدات وكم دروستي أنا وهل ليني أحكام تقصها بسن بشهر رمضان درسي كهري وحن قصوا هذا الني وحيابها أي كسو قناته سو قليد بشهر رمضان درسي أنا ما أنت نوحو كسها بسن هي صوم كرمضان يوكو واجبا طبعا صوم كرمضان ضدك أنكم ود واجبه وحكو واجبا عدي لغهله شروط سو سعته شرطك كوباد waxa weeye al-islaam qofku waa inuu yahay qof muslim ah gaalka soomkiisu ansixi maayo sababtoo ah soomku waa cibaadaduna waxa shardi u ah iimaan qofku waa inuu yahay qof mu'mina waa inuu noqdo hadii uusan qofku mu'min ahayn cibaadadiisu ma ansaxayso soom ha noqoto salaad ha noqoto xaj ha noqoto ma ansaxayso إلهي القرآن كويري ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة قفكي السمية أعماش الصالحات كا رقي الضمر روح دونها النقدة سوى مؤمن تتكاس الجنة دي قلها مركا وهو مؤمن وشرطي قفكو إنه قف مؤمنيه قالكو هدي وناك سمية أدونك أنت أوتشوغو إحسان بو سمية وحبول بحيي ضد أقرقاري أبالكيسا يجزيهيسا إلهي أدونكو كسينايا عافمات الله سيو مالها الله سيو وحيابك لأيو أدونك وحبوكو انتفاعه يا إلهي أصينايا لكن مال انت آخره وحبك الديف ما يعمل كاس إلهي القرآن كوحكيري وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال كمركا صومك أسيق لقدل بمايو صون لأرر مايو وحا لقدل بهايا إسلامه إنو إسلامه هديو إسلامه مركاس أيا صومك لقدل بهايا هدي قالكو صو إسلامه laga dalbi maayo inuu soo qaleeyo wixii ka tagay soon iyo salaad wixii ka tagay inuu soo qaleeyo laga dalbi maayo hadda wixii ka dambeeya ayaa laga rabaa hadii uu soo islaamo bisha ramadaan dhexdeeda waxa laga rabaa inta soo socota inuu soomo intii tagtay lagu malaha mana soo qaleynayo maalin ramadaan dhexdeeda haduu soo islaamo inta maalinta ka dhiman ayuu cuntada iyo cabitaanka iska deynaya isagoo ilaalinaya xurmada waqtiga laakiin maalintaas inuu soo qaleeyo laga ma rabo shardiga labaad oo qofka uu soomku waajibka ku yahay uu leeyahay waxa weeye al-bulugh wa qangaar qofku inuu noqdo qof qangaara soomku ku waajibo sabiga aan qangaarin wiil iyo gabar wax doon ha noqdee nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri rufi'a al-qalamu an thalath saddex qalamki waa laga kor yeelay macnaha malaa'iktu u qorimayso dambi u qorimayso qofka koobaad waa qofka jiifa ilaa uu ka soo kaco hurdada ka soo kaco qofka labaadna waa sabiga ma ilmaha aan qangaarin ilaa uu ka qaangaaro qofka saddexaadna waa qofka waalan ilaa aqligii uu uga soo noqdo laakiin ilmaha yarka ah oo sabiga ah hadii uu soomo soomkiisu waa ansaxaya hadii uu yahay way mumayyiz macnaha mid kala garan kara soomkii garan kara oo soom iyo afur kala garan kara oo la fahamsiin karo wax kala garanay haduu yahay oo uu soomo soomkiisu waa u jiraa oo soom saxiix ayuu noqonaya waxaana la rabaa ilmaha in la faro soomka la faro haday awoodi karaan si ay uga caada dhigtaan oo u bartaan soonkii gabar la oran jiray saxaabiyada la oran jiray Rubayy bint Muawwid la oran jiray ayaa waxay tiri ilmaheena waan soomin jirnay markaas waxaan u sameyn jirnay waxyaabo ay ku cayaaraan oo ay ku mashquulaan ayaan waxaan uga sameyn jirnay suuf uga sameyn jirnay midkood markuu ooyo oo cuntadii u ooyo ayaan siin jirnay lucbadaas si uu ugu mashquulo ilaa laga gaaro afurka waqtigiisa waxaad garanaysaa ilmo yar oo lucba laga sameeyay suuf laga sameeyay ku mashquulaya da'da uu noqon karo waa garan kartaa culimada qaarkood waxay ku xadeeyeen waxay yiraahdeen 7 sano markuu jiro ayaa la faraaya 10 sano haduu gaarana waa lagu garaacay waa lagu qasbaaya iyagoo uu qiyaas qaadanaya salaadii laakiin asalku waxa weeye da'du doona ha jiro hadii uu awoodi karo soonka uu awoodi karo ilmaha awoodi karaan oo san dhibaato badan kala kulmayn waxa weeye in la faraway soonka in la faraway hadii uu san awoodi karin midna ilmaha way jiran yihiin ama aad buu daciif u yahay hadii uu sidaa yahay dhibaato badan kala kulmaayo waa laga deynaya laakiin hadii uu awoodo walow yani gaajo qabato gaajo way qabanaysaa laakiin hadii uu awoodi karo in la amro weyn in ma aha sida dadka qaarkood ay ilmaha intay ka qaalib noqoto naxariistu ay ka qaalib noqoto ilmihii waa weyn aan soonkii la farayn hadhow taasi waxay keenaysaa markii uu qaan gaaro soomkii inuu awoodi waayo amaba uu diido ayay keenaysaa marka ilmuhu intay yar yihiin waa in lagu tarbiyeeyaa حتى هدي صوم كمال كميدا قار كميدا وسومي كرو قارنا أودي وايو ولا قد دينها قار كميدا أيال السون سينايا شردقة صدحات وحوية العقل قف وينو يهي قف عقلي له صوم كوكوم واجب قف والا مجنون
ama aan caqli lahayn ku waajibi maayo sidoo kale qofka haddii uu gala kooma galo oo uu noqdo qof suuxay oo kooma galay isna soomkii waajib kuma aha qofka laakiin koomada galo suuxay ama qofka sakhraamay wax inta cabay sakhraamay xalay waa saxuurtay soomkii waa niyeystay markaas ayuu kooma gala waa suuxay maalintii oo dhanna ma soo kicin waqti kamida ma soo kicin ilaa qorraxdu ka dhacday ma soo baraarugin qofkaas soomkiisu ma jiro sidoo kale qofka sakhraamay oo xalay soonka niyeystay laakiin waxbuu cabay uu sakhraamay ilaa qorraxdu ka dhacday ma soo miyirsan isaguna sidoo kale soomkiisii ma jiro laakiin labaduba qofkan koomada galay ama suuxay ama qofkan sakhraamay maalintii waqti ka mid ah hadday soo miyirsadaan xalana soomka ay niyeysteen soomkooda markaas waa soon jira weeye la mid ma aha laakiin qofka asagu hurdo inta seexday xalay markuu saxuurtay maalintii oo dhan jiifo bacdalmaqrib soo kacay qofkaas asagu soomkiisu wuu jiraa laakiin haddii uusan wax cudurdaara lahayn oo hurdadaas uu galay uusan wax cudurdaara u lahayn wuxuu ku tacadiyey waajibaadkii salaadda ayuu ku tacadiyey laakiin soomkii la odhan mahayo ku soo celi la odhan mahayo qofka marka inta suuxay sidaa soomka uga tegey ama sakhraamay oo sidaa soomka ku dhaafay waxaa laga rabaa inay soo qalleeyaan ayaa waajib ku ah laakiin qofka waalan oo muddada dheer waalnaa qofkaas isaga lagama rabo inuu soo qalleeyo laakiin culummada waxay yidhaahdeen haddii qofku asagu sabab iskugu ahaa waalidaas oo waxa uu ku waashay wax asagu uu isticmaalay ay ahaayeen waxaa laga rabaa hadhowtii markuu soo miyirsado inuu soomka ku soo celiyo ayaa laga rabaa ayay yidhaahdeen leannu tacadi buu sameeyey shardiga afraad waxa weeye alqudratu cala asawm qofku waa inuu awoodi karaa soomkii qofka mariidka ah ama jiro daran maradku uu yahay marad shadiida uu yahay oo marad culus uu yahay qofkaas isagu soomku waajib kuma ah inta uu jiran yahay marka uu jirada ka raysto ayuu soo qallaynaya sidee lagu garan karaa marka maradku inuu yahay marad shadiida inuu yahay marad daran inuu yahay ma cudurkii xanuun daran inuu yahay waxaa lagu ogaan karaa laba arrimood midkood waa midda koobaad qofkii asagaa dareemi kara inuu qofkii xanuun daran hayo uusan la soomi karin isagaaba dareemi kara midda labaadna waxa weeye isagu ma dareemi karo inuu maradkaani yahay marad soomkii uusan la soomi karin inuu yahay ma dareemi karo laakiin waxaa u sheegay dhakhtar lagu kalsoon yahay oo yidhi qofkan soomku wuu dhibhayaa oo dhibaato u keenaya ama maradkiibaa kusii ziyaadahaya ama raysigiibaa dib u dhacahaya marka qofka sidaasana isagu soomku waajib kuma aha laakiin maradka isagu ama xanuunka isagu khafiifka ah sida madax xanuun fudud ama hargab qofkaasoo kale isagu maya soomka inuu afuro qofkaasi u bannaanaan mayso qofka marka u afuray xanuun dartiis u afuray waxaa laga rabaa soomku inuu soo qalleeyo ayaa laga rabaa ayib qofkii marka xanuunsanaa oo inuu afuro ay u bannaanayd haddii uu soomo soomkiisu ma ansaxaya hadduu isku dhibo soomkii oo uu soomo soomkiisu ma ansaxaya soomkiisu wuu ansaxaya laakiin rukhsadii ilaahay siiyey ayuu ka tegey marka soomku haddii uu u soo jiidayo dhibaato weyn oo uu ku reebanayo maradkii kusii kordhahayo oo sida ama dhakhtarkiibaa u sheegay ama isagaaba dareemahayaba maradkii inuu kusii ziyaadahayo ama raysigii uu ka daahayo qofkaasoo kale waxaa waajib ku ah inuu iska afuro nafta inuu dhiba maaha cadaaba maaha qofka asagu marka qaba cudur aan sida caadada ay tahay aan laga raysan oo aan la rajaynayn inuu ka raysto cudurrada aan laga raysan sida caadiga ah qofka cudurkaas qaba isagu soomku waajib kuma aha waxaa laga rabaa inuu fidye iska bixiyo waxaa la mid a asaga qofkaas waxaa la mid ah qofka waayeelka ah oo da'da ah oo aan soomkii awoodin isaguna sidoo kale soomkii lagama rabo waxaa laga rabaa fidye inuu iska bixiyo fidyadu marka maxay tahay fidyadu waxa weeye maalin kastoo ramadaana wuxuu bixinayaa wax ku filan oo dharjin kara qof miskiin ah ama qado ama casho u noqon kara labuu marka ikhtiyaar u leeyahay inuu maalin walba uu qof quudiyo maalintaas ramadaan uu ka tegey oo uusan soomin inuu isla maalintiiba uu qof quudiyo ama uu isla sugo bisha aakhirkeeda uu sugo hadday 30 ahayd ama 29 ahayd maalintii bishu u dhammaato uu 30 ama 29 hadba bishu intii ay ahayd qof oo masaakiina inuu cunto u sameeyo oo hal mar uu meel ku jamciyo uu markaa halkaas uu maaragta fidyadii sidaas uu ku guto iyadana uu yeeli karaa qofka asagu waayeelnimo darteed isku dardarsamay oo aan kala garanayn ma ramadaan baa la joogaa mise shawaal baa la joogaa aan kala garanayn oo caqligii ka tago isku dardarsamay qofkaas asaga soonna laguma leh fidyana lagama rabo majnuunkii buu la mid yahay qofkii waalnaa buu la mid yahay qofkaas asagu marka waa marfuuc canhu alqalam
qalamkii waa laga koryeela isagu wax laga rabo lama arko shardiga lixaad oo qofka soomka uu ku waajibahay uu leeyahay waxa weeye al-iqaama waa inuu yahay qof nagi oo aan musaafir ahayn qofka musaafirka ah isaga soomku waajib kuma ah inta uu musaafirka yahay markuu safarku u dhamaado ayuu soo qalaynayaa maalmihii ka tagay oo safarka dartiis uga tagay safarkaasi ha noqdo safar la lugaynayo ama baawur ha ku safro ama diyaarad ha ku safro safarku ha noqdo safar dhib leh ama ha ahaado mid aan dhib lahayno muriix ah oo qofku soo wax dhibaato la kulmi ha noqdo marka qofka musaafirka ah isagana soomku waajib kuma aha laakiin haddii uu soomo safarkiisa isagoo musaafira uu soomo soomkiisu waa saxiix waa ansaxaya laakiin tee u fadli badan ma inuu afraa u fadli badan mase inuu sooma u fadli badan ahlul cilmi waxay yiraahdeen haddii qofka soomku uusan wax dhiba ku hayn oo wax yani dhibaato ah uusan ku hayn waxa u fadli badan inuu soomo sababtoo ah waajibkiiba horta iska ridaya marka hore midda labaad dadka in lala soomo markay dadku sooman yihiin ayaa ka sahlan qofku inuu keligii soomo midda saddexaad waqtiga ramadaanku waa waqti fadiil ah waqti fadli badan weeye marka soomkiisi u waafaqo waqtigii fadliga badnaa inuu soomo ayaa u fadli badan ayay yiraahdeen laakiin hadduu soomka dhibaato kala kulmaayo waxay yiraahdeen waxa u fadli badan inuu iska afuro oo ruqsadii ilaahay uu qaatay uu siiyo haddiise qofka dhibaatada ka soo gaaraysa ay tahay dhibaato weyn oo waxyaabo kale u soo jiidaysa soomka uu soomay dhib kale u soo jiidaysa oo dhibaato kale u soo jiidaysa jirkiisa ama caafimaadkiisa markaas waxa weeye waa inuu afuro ayaa waajib ku noqonaysa shardiga lixaad waxa weeye qofka dumarka ahi inay daahir ka tahay xayd iyo nifaas haddii qofkii dumarka ahaa uu ku dhaco xaydkii ku dhaco maalintii ramadaan soomkaasi waa fasaaday xataa haddii ay afurkii ka dhiman tahay daqiiqad ay ka dhiman tahay oo uu ku dhaco xaydkii ku dhaco waxa weeye soomkaasi ma jiro maalinta way ku soo celinaysaa dabcan intii ay soomanayd ajarkeeda way leedahay oo ilaahay qofka mu'minka ah camalka uu sameeyay ilaahay kama dayaco ajarkiisa laakiin maalintaasi uma xisaabsana way ku soo celinaysaa sidoo kale hadday ka daahirsato markii fajarkii soo dhashay waqtigii uu maalintii soo gashay hadday ka daahirsatana maalinta ka dambaysa soom ma soomayso qofka dumarka marka haddii ay u afurtay xayd iyo nifaas dartiis waxa ku waajiba inay soo qalayso gabar la oran jiray Muaadha binti Abdullah ayaa waxay weydiisay Aisha ayay weydiisay radiyallahu anha waxay tiri maxay qofka xaydka ahi ay soonka u qalaysa ay salaada u qalayn markaas waxay ku tiri aharuriyatun anti ma kharijiyad ma ta khawarij ma tahay haruriya macnaha meel la oran jiray waxa jirta harura oo Ciraaq ku taalay meel Kuufa ku taalay agti u dhaweey oo ahayd meeshii ugu horeysay oo firqada khawaarijtu ay ka soo baxeen ka soo daahireen marka qof kasta oo fikrigaas khawaarijnimo lagu arkay waxa la oran jiray haruri marka khawaarijta taaifa kamida ayaa waxay qabeen qofka dumarka oo xaaidada ah inay soo qalaynayso soomkii iyo salaadiiba markay su'aashaad weydiisay waxay ku tiri ma haruriyad baa tahay markaas waxay tiri lastu haruriya haruriyad ma ahiya su'aashan baan weydiisanahay markaas waxay ku tiri Aisha waxay ku tiri wuu nasiibi jiray arrinkaani oo ahaydka waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan la amrin jiray inaan soomka soo qalayno nalama amrin salaad inaan soo qalayno dadka ahlul muslimiintuna dhamaantood waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofku inaysan soo qalaynin xaaidada inaysan soo qalaynin salaada ay soo qalaynin soomka ay soo qalaynayso sababta ay soo qalaynin salaada waxa weeye mashaqada darteed sababtoo hadii la qofkii usbuuci ama todobadii bari oo xaaladda ku sugnaa salaadeeda la soo qalayso waxa weeye mashaqo badan ayay kala kulmaysaa marka muslimiintu sidaas ay isku waafaqsan yihiin ilaa taa'ifadaas khawaarijta amaahan oo qowlkoodu uusan qabashada lahayn درسنا مانتنا انت ايو كو sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi